mudanayaal iyo marweyn ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegayo waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee sanadkani dhammaadka ah ee 2018 dhacay, kuwaasi oo ah waxyaabo cajiib ah aadna loo buunbuuniyey. haddii aan idiin soo qabto qodobka ugu horeeya, fanaanada Deeqa Afro oo ah fanaanad caan ah xushmad badan loo hayay ayaa mar qura faraha ka baxday iyadoo muuqaal la yaab leh soo dhigtay barta YouTube-ka. fanaanadan ayaan waxba u reeban dhalinta iskaabulada ah, waxayna ka tirsanayaan inay meel kaga dhacday xuquuqda iskaabulada dahsoon. muuqaalkani oo ah mid anshax xumo ah lagana fogaan karay ayaa ah mid aan dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinteena suuban sal iyo baar ku lahayn. qisada ugu cajiibsan ee muuqaalka Deeqa Afro ayaa ah inay farta dhuuqayso sida aad aragtaan. waana mid ay caan ku yihiin hablaha jila aflaanta xunxun. Deeqa Afro iyadoo ka jawaabaysa dhaleecayn tiro badan oo loo soo jeediyey, waxa ay sheegtay in kuwii dhaleeceeyey ay ka xun yihiin horumarkeeda. haddii aan intaasi ku dhaafno Deeqa Afro, la yaabka sanadka waxaa ka mid ah fanaanada Shaadiya Sharaf ayaa soo qaaday hees lagu magacaabo Igu Qabo. haddaba heestani miraheeda iyo qaabka loo sameeyey ayaan ahayn mid loogu talagalay inay noqoto suugaan, waxaana iska cad in muuqaalka laga rabay inuu soo jiito dad badan oo ay ka mid yihiin ragga iskaabulada ah si looga helo views ama daawasho badan. laakiin nasiib wanaag, dhowr maalmood un kadib waxaa laga saaray barta YouTube-ka ee markii hore la soo dhigay. gabadhan ayaa ku kacday dhaqan xumo aan geed loogu gamban, waxa ayna si fudud ku oran kartay igu qabo laabta, laakiin waddo kale ayayna la martay. waana tan keentay in si adag loo dhaleeceeyo. hase yeeshee, waraysi ay bixisay kadib markii heesta laga saaray YouTube-ka ayay ku sheegtay inay ka xun tahay arrintaasi ayna sii wada doonto howlaheeda shaqo. daawadayaal, waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijka. waxyaabaha ugu cajiibsan ama ugu la yaabka badnaa ee sanadkan 2018 dhacay waxaa ka mid ah gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed oo isagu ka soo jeeda beesha Jareerweyne. sida la sheegay ayuu jecel dhex maray, laakiinse cidda ay ka dhalatay gabadhu ay diideen in lagu daro wiilka Jareerweyne, taasi oo abuurtay xiisad weyn. waxaana dhacday in gabadhii iyo wiilku isla baxsadaan. waxaa la sheegay in hooyada dhashay gabadha la xiray, kadibna wiilka Jareerweyne adeerkiis la dilay iyadoo la soo wariyey in la gubay jirkiisa, falkaasi oo noqday mid argagax badan ka dhashay.
ayaa sidoo kale noqday layaab iyo dhabanahaysi, waxaana ka falceliyey dad badan oo caan ah oo ay ka mid yihiin culimo miisaan ku leh bulshada dhexdeeda. xildhibaan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay aroos qaran u dhigayaan wiilka iyo gabadha, waxaana la dejiyey hoteel khaas ah. arrintaas ayaa abuurtay walaac iyo in dib loogu noqonayo isku dhac iyo qabiilaysi hor leh oo aan xilligani Soomaaliya u diyaarsanayn. gabadha iyo wiilka ayaa lasoo fadhiisiyey TV waana la wareystay. haddaba gabadha oo aan u muuqan qof miirkeedu joogo da ahaan aan ahayn qof mustaqbalkiisa go'aan ka gaari kara ayaa iska qoslaysay iyadoon ka jawaabin su'aalihii la weydiiyey, mana muujin inay ka xun tahay xaaladda hooyadeed oo xabsi ku jirtay waqti xaadirkaasi. taasi ayaa dhalisay in dad badan ay su'aal ka keenaan sugnaanshaha maskax ahaaneed ee gabadhaasi yar. dowladda ayaa dib uga laabatay go'aankii ahaa aroos qaran iyadoo la joojiyey ka hadalka saxaafadda ee arrintaasi. daawadayaal, barnaamijka waxaa idin daadihinaya anigoo ah Saciid Gadaf. halkaad kala socotaana waa shabakadda horumarka dalka. waa cajiib, waxyaabo badan oo la yaab leh ayaa dhacay sanadkan dhammaadka ee 2018. waxyaabo badan oo tirada ka batay aan la xisaabin karin. hase yeeshee kuwa uga cajiibsan ayaan halkan ku soo qaadanaynaa. gabar yar oo sida la sheegay degan degmada Shibis ee gobolka Banaadir ayaa live u gashay wiil ay isjeclaayeen, isagoo xujo uga dhigay in ay musqusha gasho ayna cunto jab ka mid ah saxaradeeda. waxaan soo xasuustay xigmadii odhanaysa daacad noqo oo aamin, laakiin si aad ah ha u aaminin, daacadna ha u noqon. maxaa yeelay waxaa dhici karta in ay ku dhaawacdo oo naftaada dhib u keento daacadnimada xad-dhaafka ah. haddaba gabadha miskiinta ah waxa ay samaysay waxa uu yiri jacaylkeeda doqonka ah, isagoo ka duubay soona dhigay baraha bulshada. arrintaasi oo noqotay dhabanahaysi ayaa ah doqonnimo iyo akhlaaq aan wanaagsanayn oo dhex martay laba qof oo midna yahay khiyaanoole halka midka kalena yahay daacad qalbi saafi ah. haddaba gabdho waxa jeclaada ceeb maaha, laakiin iska ilaaliya waxyaabaha qaar. qodobka la yaab kale ee anigu si aad ah ula tacajabay waxa uu yahay qiso ka dhacday gobolka Galguduud ee bartamaha Soomaaliya. gabaraan asxaabnahay ayaa ila wadaagtay in nin ka mid ah ragga deegaanka uu isku dayay inuu kufsado haweeney umul ah oo dhalaneeday dhowr maalmood, kadibna ay ka biyo diiday inuu kula kaco tacadigaasi. ninkii waxa uu qaatay buris, waxa uuna caloosha kaga garaacay haweeneydii umusha aheeday, halkaasina waxaa ka soo gaaray dhaawacyo aad u culus. haddii aan halkiisa ka sii ambaqaadno tacajabka sanadka, maama malyuun oo ah maamo aad wada garanaysaan ayaa isku ekaysiisay madaxweynihii hore ee dalka South Africa Jacob Zuma iyadoo madaxeeda aan hal tin ku reebin. falka maama malyuun ayaa keenay la yaab. kaaga darani waxa ay la taagan tahay in ay ku faraxsan tahay sidii ay wax u dhigtay iyo madaxa sulux ah ee ay YouTube la soo shirtagtay. daawadayaal, waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka. waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad share garayso, like garayso, subscribe-na aad dhahdo barteena YouTube-ka. ila wadaag haddii aad hayso waxyaabo la yaab leh, aniguna halkan ayaan ka sii day doonaa si ay cashir u noqoto. barnaamijku waa uu socdaa ee ka harin sanadka cusub iyo qaybihiisa kale oo ah taxane asbuucle ah. mahadsanid.